nadhaafo Somaliland waa maalin sugano aasaari calankee saxalkii nadhaafo Dhallinyara Soomaaliyo abatimaha soodiyo sambigiyo dhaqankuba nabaday ku seexdeen Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay ha noolaado madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ha noolaado dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado dadweynaha gobolka Gabiley ha noolaado dadweynaha reer Togwa Jaale ha noolaada waxaan halkan salaan qaali uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guushii uu ka soo hooyey socdaalkiisii taariikhiga ahaa ee Imaaraadka Carabta ee uu kala soo noqday guushii ugu weyneyd abid aanu gaadho oo ahayd in loo sameeyo dalkeennan maalgashigaasoo lagu dhisayo dekadda berbera marka la dhisana la dhisayo intaan dekeddaba la dhisin laami weyn oo afar haada oo wajaalo ka bilaabmaya oo berbera qabanaya oo ay alaabta dekedda ka soo degta ay soo mari doonto guusha iyo bishaarada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qarankiisa iyo dadkiisa u soo hooyey oo aynu nahay kuwa koowaad ee ka faa'iidaysanaya ayaan idinku salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaaliga ah hambalyo waxa kale oo aan halka ka salaamayaa dadweynaha reer Togwa Jaale dhalinyarada haweenka culimaaudiinka gaadiidleyda fardoolayda iskaashatooyinka kala duwan ee degmada Togwa Jaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib walaalayaal waxaynu halkan isugu nimid inaynu xuusno 18 May oo taariikhdeeda aynaan wax badan ka ogeyn waxa kaloon iyadana halkan ka xusaya Hodan Maxamed Aadan Warsame guuto liqe oo ahaa raggii halganka qalaar soo maray dhulkan oo guuto liqe loogu bixiyey oo uu bixiyey Allah u naxariistay mujaahid Bahd Cali Faarax oo iskuulka loogu magac daray ayaa u diray sahan ciidan wato guuto liqe Maxamed Aadan Warsame dabadeed ciidan fara badan oo isaga ciidankiisii ka fara badan baa helay uu ka guulaystay ciidankii markuu ku soo noqday xeradiisii waxaa loo bixiyey Mahad Cali u bixiyey Allah u naxariistay Maxamed Aadan wuu nool yahay maanta guuto liqe u bixiyey guuto liqe maanta inantaas tuula dhammayn kara maaha aabbaheed baa caynkaas ahaas ilaa maanta waa caynkii halkiibuu ka sii wada halgankii qanaanaayo uu ka soo qaatay 30 sano ka hor bay ahayd hodan sacab u garaaca sacab taa haddaynu halkaan ku dhaafno ha u qaadanina dadkii cadowga ahaa ee waddankan laga xoreeyey may ahayn kuwa inaga guulaystay horta waxaynu ka guulaysannay innagaa ka guulaysannay si ballaaran baynu uga guulaysannay si aan la soo koobi karin baynu uga guulaysannay goob wal oo aynu iskaga hor nimaadnaba waynu ku jabin jirnay qof shiciba inay waxyeelaan mooyaane oo aan waxba haysano faramaran inay waxyeelaan mooyaane weligood goob la iskaga hor yimid laynagagama guulaysan bishaaro ilaa warumaydaan hayn idinkooda maantana maaha kuwaas noocaasi kuwa inoo soo bugi kara maaha kuwa wax inaga sheegi kara maaha kuwa hawaynu leenahay soo geli kara maaha kuwa hawaynu leenahay sheegan kara maaha kuwa dhawaynu leenahay sheegan kara maaha kuwa hantaynu leenahay sheegan kara maaha kuwa berbere ka sheekayn kara maaha berberi waxay ahayd goobtii ugu dambaysay lagu kala faraxashay hadda waa lagu kala guulaystay duuracad baa lagu kala dhaqaaqay iminkana waxay leeyihin dekadda berbere lama dhisi karo ma maanta adduunyadu dhalatay 1991 bishii koowaad 21 ayaanu ku kala faraxalnay berbera maantana waxay yidhaahdeen mid xamar jooga maalin dhaweyd lahaa waxaanu diidanahay in dekadda berbera la ballaadhiyo la dhiso ma isagaana dekadda berbera ma waxbuu yeeli karaa ma waxbuu ka qaadi karaa waa waxa suuroobay weeye waxaan idinku bogaadinayaa maanta maalin aan ahayn baad garan doontaan anigu beri dhaweyd 20 sano ka hor marka la yidhaahdo waddankana minkaa u hadhaya
idinkaa yeelanaya mahdi cali oo kale allah u naxariista markuu la yidhaahdo waxaanu haystay wax fog iminka waxaannu idin leenahay waddankan idinkaala dhallinyaroy idinkaa ganacsigiisa leh idinkaa madaxdiisa leh idinkaa mas-uuliyaddiisa leh wax walba idinkaa ka noqonaya cidina idinlama leh ha u qaadanina inay dadkan iminka joogayaan guddoomiyaha idinkaa halkan ka noqon doona gabilayna idinkaa ka noqon doona wasiirada idinkaa noqon doona madaxweynahana idinkaa noqon doona sidaa ula socda ku xisaabtama waxaa kaloo aan halkan idinka sheegayaa sheekadii tahriibka wixii la sheegsheegi jiray waxay la soo dhaafay buu ahaa maanta cidaadan haysaa inaanay jirin baan u malaynayaa waxaannu idin ballan qaadanaa annagu sidaa madaxweynuhuna idinku ballan qaaday ee ballanqaadyadiisii uu oofiyey waddadaa keliya samaynteeda iyo mashaariicda togwa jaalo oo keliya ka bilaaban doonta sannadkan aynu ku jirno gudihiisa ayaa dhallinyartan oo dhan ka qayb qaadashadoodu intaasaa camal idinku filan baannu idin odhan karnaa maanta waddankiina ha ka daalina aad iyo aad baad u baadsan tihiin si fiican baad uga soo qayb qaadateen mana jirto degmo la mida degmada togwa jaale ama gobol hargaysiya burciyo boorama marka laga reebo meel magaalada la mida oo la dada oo la xamaasada guud ahaan marka waddankaba la eego hawl kasta oo taagan lama heli karo ma jirto baannu leenahay waxaa kalooaynu halkan ka codsanaynaa degmada meeqaamkeeda in la gaadhsiiyo oo xukuumadda somalilan gaadhsiiso oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gaadhsiiyo ayaannu ka codsanaynaa waana inoo suuroobaysaa codsigiinnana guul waxaan salaamaynaa marka hore xukuumaddeenna madaxweynaha golayaasha qaranka dhammaan shacabka somalilan oo dhan waxaan ku salaamaynaa ciidda sanad guurada 25aad ee la soo noqoshada qarannimada somalilan 18 May halkudhegga sannadkan taageeradan taageerayno 25 martaay 18 May wajaale waxa weeye inaynu taageerno horumarka inaynu taageerno maalgashiga inaynu taageerno in adduunka laynagu xidho oo aan noqonno meel hub ganacsi iskaga gudbo ama logistika geeska afrika u baxayo dhan iskaga gudbo waxaad wada ogtihiin in somalilan iyo etoobiya waa saxeexeen heshiis ganacsi oo ay kala soo degayso iminka ka bilowga ah 30% boqolkiiba waxa ay la soo degto inay kala soo degayso dekedeenna berbera halkay maraysaa waa wajaale soo maaha 4 milyan oo mitirtan oo wax soo saar ay Itoobiya u baahan tahay ayaa wuxuu marayaa wajaale macnaha markuu wajaale marayo waxaan ka helaynaa hadday noqoto gaadiid hadday noqoto ganacsiga isku socodkaasi wuxuu wataa barakadiisa waxaynu taageernaa heshiiska soo ma taageerno soo xukuumaddeenna ma taageerno soo xisbigeenna ma taageerno kuwana shushadeenna yaahuu baan leenahay runtii maanta waa maalin qiimo badan oo aynu xusayno maalintii aynu dib ula soo noqonnay qarannimadeenna ee 18 May 18 May macnayaal badan bay leedahay marka laga yimaado halgankii 18 May waxa weeye maalintii dhammaanba beelaha deggan jamhuuriyadda somalilan ay ku heshiiyeen in ay qarannimadoodii dib ula soo noqdaan oo dawladnimadii 60kii laga luntay aynu la soo noqonno oo aynu noqonno jamhuuriyad gooni u taagan oo la yidhaahdo jamhuuriyadda somalilan ilaahay baa mahad leh maanta waxaynu u dabaaldegaynaa 25 guuradii ka soo wareegtay maalintii qaranka jamhuuriyadda somalilan didibadda loo taagay waxa weeye maanta waa maalin qiimo weyn leh waa maalin dadka muwaadiniinta ah ee reer somalilan maalin ku qaaliya weeye waxa weeye waxaynu ognahay calankaa aynu arkayna tawxiidku suran yahay dhayal laguma helin kumanaan kun oo qof baa u geeriyooday kumanaan kun oo qof baa ku dhaawacmay wax dhayal lagu helay maaha
xoog baa lagula soo noqday qarannimada jamhuuriyadda somalilan waxaan doonayaa inaan halkan ka hambaliyeeyo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Togo Jaale ahna guddoomiyaha guddida qabaqaabada ee Dhiinmay ee degmada Togo Jaale waxaan maanta halkan ka hambaliyeynayaa dhammaan shacbi weynaha degan degmada Togo Jaale siday u muujiyeen shucuurtooda iyo dareenkooga waxa kaloo waa inaan ku naaloonnaa dhiig baa loo galay dhagar baa loo galay waa laga qaxay dalka waa logayeen xoolaha la ciqaabayey iska daad bini'aadmiga oo xoolaha la ciqaabayey oo cuntada baad iyo biyaba laga jaray ninkii ogaaba wuu ogaa laga yaabaa dhallinyaradiinnan inay sheeko idinku tahay laakiin taariikhda gashada waxa loo huray halkan guushan maanta aan ku naaloonayno dhib badan baa loo huray waxa inagu waajiba kolkaa inaan xajisanno oo nabadgelyada ilaashanno oo maanta aynu ku xusayno degmada Togo Jaale sida quruxda badan ee aad u soo agaasinteen ee aad ugu soo baxdeen ee aad cadceedda u xamisheen waxa aan idinku hambalyaynaynaa aanu idinku garab taagannahay sida uu sheegay telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan Madaxweyne Cabdicasiis Maydhax waxa uu siiyey degmada Togo Jaale isu soo bixii ugu ballaadhnaa ee degmooyinka ee ka dhaca jamhuuriyadda somalilan maanta oo ay tahay 18 May waxaan halkan hambalyo uga dirayaa oo aan ayaa halkan wanaagsan oo hogaamiyadii jabhadda mujaahidiintii ay ku jireen waxaan nabadgelyada ay maanta ku naaloonayno waa ciddii keentay mujaahidiinta intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta noolna waanu u mahadnaqannaa waa kuwii keenay guushaa maanta ay nabadgelyada aynu ku naaloonayno kuwii keena weeyaan aad iyo aad baynu ugu mahad celinahay intii nool intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto ayaynu leenahay waxaa kaloo inala jooga garyaqaanka guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan xildhibaano gobolka ka socda gabiiley dhammaan maamulka degmada Togo Jaale guddida qabanqaabada oo guddoomiye u yahay mudane mursal oo si aad iyo aad u soo abaabulay iyo intii xafladda quruxda badan leh ka soo shaqaysay dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal reer wajaalow waxaynu qaadnay maanta si dhaba markaynu wada hadallo koobkii reer somalilan annaga qaadnay sababtu tahay dharka cagaaran calanka saddexda midab leed ku labisan tihiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxa kale oo ani yar oran lahaa cadowga somalilan maalmahan wiigagan laba iyo